كان فرماجه هذا مسكين كا وضقن وهري انه وحن كلا توره كل انه كلا توره لانه شرعي ما اها دنكم ما جيرتو waxa inooga sii daran hadda qaybinta siyaasiga ee dalad waxa ka daran qaybinta diineed qodobka inaan baroojiwaan rabo waa hilmaamayba qodob khatar ayaa jira in yasiyad barra oday aqli badan buu ahaay masaa'il kale oo isku haysanahay dambeeyaane xilligi hada gurey baa fadhiya hada waxba ka garan maayaan uma iska iloobay waa waayeelay xilli 86 ayd baan u malaynaya 88 wafdi Iiraana inoo yimid muqdisho yimaadeen waxaan rabnaa inaan Soomaaliya maal gelino safaarada fiican ka furanno aynu wadanka dhaqaalihiisa soo qaadno waxna ogolaataan qoliye la talin hayaasaga iyo qoliye golaha sare iyo saraakiisha oo dhanba wax isku waafaqeen wasaaradii in nimankaas dhaqaale fiican laga qaato wadankana safaarad fiican looga furo sida carabta loo soo dhaweeyo ina sabdar wuxuu ku yiri gaajaba ayna haysay yeeli mayno Iran bas bay naga tahay maxaa jira Soomaali qabiil iyo xogo goof iyo beer iyo bay isku ku dagaalantaay maalinkay Iran inoo timaado marka wuxuu yiri hadda waxa u dagaalami doontaan buuri shiica iyo sunno waxa carabta hayso Soomaalida arag marka waa istiraatiijiyo waxa weeye ku salaysan nabadiina amnigiina diineed wuxuu asaas u yahay inaydan ku kala tagin aragtida diineed ninka Soomaaliya lagu arkay inuu shiicnimo wado kurka la gooyo sharciga qaba hadayba wadadalahayeen waxa banaan in gaalnimo maslaxa loo galo ninka umada qaybinay maslaxa loo dilay maxaa ku diideen marka qadiyada aad ogaada midan qaybinta dalkana hada waa doqonnimo ninka ka taliya Soomaaliya ama gaal ha noqdo ama muslim ha noqdee anaga dantaanada diineed waxay ku jirtaa inay Soomaaliya mid ahaato ninka qaybinayna wadaadna Allah ka dhiga madaxa lagu dhufto laano kan gaalkay ka taylaya markaan tabar helaanaga ka tuuran doona dalku noo midaysano waaxid ah oo qaybsanayn markaan tabar helo anaga cid baraka kaga qaadi doona laakiin qoom duloobay oo kala tagay oo 20 firqa noqday seel isku keenay waaga dam warkaas caraba la isku keeno goof yar oo banaadir ka yar ba dawladda Kuwait iyo Bahrain iyo Soomaaliya arag Qatar oo dhan anaga reer macalina ka badan Bahrain wada aragteen qoyska Soomaali ugu yar ba ka badan Kuwait jibsan Soomaali xataa ma dhanno mid walba boqor baan ahay halkaas uu taagan yahay inay midoobaan oo dan diineed iyo mid adduunyo waliga la sugi maayo Soomaali maxay tiraahdaa توقتها مركي قيب سنتو تلادادونا لماناتي نيمي توقتها لماناتي باتليسون لماناتي